waxa uu maanayna qodob labaad oo ah blockchain. mar hadda cryptocurrency soo fahantay waxa muhiim ah inaad fahantid sida uu u shaqeeyo blockchain-ka waa diiwaan digital ah oo nidaamsan oo lagu keydiyo macluumaadka ku saabsan macaamilada ama transactionka si joogto ah bedelid la'aan oo amaan ah. taas micnaheedu maxay ka dhigan tahay haddii aniga lacag aan kuu soo diro ama adiga ay soo dirto oo adiga ina dhex marto macaamilna dhex maro, taas micnaheedu waxay ka dhigan tahay inaan la bedeli karin macaamilkaas oo lambarna lagama bedeli karo midna laguma dari karo, sidaasuu safe ku yahay. halkaas marka waxaa ka baxaya musuqmaasuqa. wax musuqmaasuq ah lagama dhex sameyn karo cryptocurrency marka aad joogto. labo halkii xog si hal meel ama decentralized loogu keedin lahaa waxaa lagu keediyaa shabakado badan oo loo yaqaano decentralized nodes oo isku xiran. micnaha hadda bankiga oo kale wuxuu leeyahay halkeed oo ku keediyo xogta daatada macaamilka oo dhan ama macaamilada oo dhan, laakiin way ka duwan tahay cryptocurrency-ga. waxay leedahay decentralized nodes oo tiro badan oo millions ah, marka keedkaaga meel walba uu yaalaa. sidaas darteed way adag tahay in laga bedelo macaamilka haddii mar aan wax isdhaafsano ama qof kale uu wax u diro wixii doonta ha ahaatee. sidoo u shaqeeyaa marka qaabka u shaqeeyo blockchain-ka inaan fahnaa muhiim ah. blockchain-ka wuxuu u shaqeeyaa blocks macluumaadka macaamilka cusub ayaa lagu keediyaa blocks. halkaas keedkaas wuxuu noqonayaa keed aan la bedeli karin hadhowtee. labo wuxuu leeyahay waxa la dhaho hashing. block kasta wuxuu leeyahay hash gaar ah. hashka waxaa la dhahaa lambar, waa lambar amni ah, iyo hashka blockii ka horreeyey si xiriir loogu abuuro. macnaha labadii block kii hore iyo kan dambe la isku abuuraya waa la isku xiriirinaya. halkaas waxaa ka dhalanayo hash. sidoo kale waxaa jiro consensus merchant wax la dhaho. isticmaalayaasha isticmaala ama shabakada nodes ku jiro waxay isku raacaan in macaamilka cusub uu yahay mid sax ah ka hor inta aan lagu darin blockchain-ka. inta aan lagu soo darin ayagaa soo xaqiijinayo, kadib blockchain-ka loo gudbinaa. blockchain-ka mar haddii loo gudbiyey wax isbedel ah meeshaas lagama sameyn karo oo lama bedeli karo. tusaale yar marka haddaa kasoo qaadno macaamilka blockchain-ka si uu shaqeeyaa. waxaad dirtaa bitcoin qof kale micnaha bitcoin u dir. labo macluumaadka macaamilka waxaa loo diri karaa shabakad nodeska si loo xaqiijiyo. saddex nodeska ayaa xaqiijinaya inaad lacagtaada leedahay oo aad u diri karto, because waxa waa in adiga aad haysataa shayga, waa in adiga leedahay marka hore. markaa wax diraysa meel zero waxba ka bedeli kartid. waa in marka hore aad haysataa waxa aad dirayso ama bitcoin-ta aad dirayso waa inaad marka hore adiga leedahay haysataa. marka la ansixiyo marka la ansixiyo xogta macaamilka waxaa lagu darayaa blockchain-ka ayaa lagu save gareynayaa. 5 lacagta waxay gaartaa qofka loo diray. marka maxaa laga soo xaqiijiyay inaad bitcoin-ta haysatid, inaad adiga leedahay oo adiga waladka ka soo diraysid. sidoo kalena waxaa la xaqiijiyay in lagu daray macaamilka ama transactionka aad samaysay blockchain-ka in lagu keediyey, kadibna lacagta waxaa la gaarsiiyey qofka kale. waxaas dhan waxay ku dhaceen marka within second gudahooda ku dhacaysaa, waqti xataa ma qaadanayso. halka bangiyada ay qaadan karto in la xaqiijiyo lacagtan in adiga akoonkaaga ku jirto oo adiga aad leedahay, kadib in qofkii loo diri lahaa asaga laftirkiisa la xaqiijiyo in akoon uu ku leeyahay meeshaan uu furan yahay akoonkiisa, ay qaadanayso 1 ilaa 2 days meelaha qaar. halkaasna ay caqabad ka jirto. haddana lacagta aad diraysa laftirkeeda cadad limit in lagu ogol yahay markaa bankiyada caadiga isticmaalaysid, halka blockchain-ka markaa isticmaalaysid wax limit ah uusan lahayn.
اوكي هذا ما حيتها marka faa'iidada blockchain-ka wuxuu yahay wax laga faa'iidayo waxa ugu horeeya waxay tahay ammaanka mar haddii la keydiyo xogtaada in lama bedeli karo wax isbedelaa laguma sameyn karo laba daahfurnaanta dhammaan macaamilada ama transactionka waa la arki karaa laakiin xogta shakhsiyeed lama heli karo maanta hadda adiga wax dirto waa la arki karaa inaa wax dirtay laakiin waxaa la arkaa lambar kaliya la arkaa lambarkaas qofka leh inuu jaamac yahay inuu geedi yahay inuu faarax yahay inay xaleemo tahay cid ma jirto kaliya meeshaan inaa lacag dhexmarta bisaa loo jeedaa cid walbana ay arki karto si firiya saddex inaysan lahayn wax xarun dhexe ah waxay bixisaa ammaan iyo kalsooni ay dadka macaamiisheeda ay siinayso ayadoo aan ku tiirsanin hay'ad dhexe wax hay'ad ay ku tiirsan tahay oo dhehayso maanta anaga iska leh barnaamijkan ma jirto waa barnaamij xor ah cid walba ay u dhaxayso qof gooni ah ka dambeeyay isii jirin okay fursadaha iyo faa'iidadiisa wixii soo ogaanay hadda maxay tahay marka caqabada blockchain maxay tahay because waxa sheegnay shay walba oo faa'iido leh bedelkiisa inuu caqabad leeyahay caqabada weyn ee haysato blockchain-ka waxaa kamid ah xog badan baa meeshaan lagu keedinaya marka xogta badan waxay u baahan tahay xasuus weyn ama wax loo yaqaano storage waa in lagu keediyaa storage weyn si xogtan ay u noqoto xog aan dhammaad lahayn oo dhammaanin caqabada labaad waxay tahay waa tiknoolajiyad welina way cusub tahay sidaas darteed caqabado ayaa ku xiran sida loo waafaqi lahaa adeegyada jira sababtoo ah dadka intooda badan ma yaqaanaan qaababka loo isticmaalo waxa ay tahay wax walba markay cusub yihiin something waxbaa ka dhiman ama waxbaa tabiisa laftaada marka maadaama si buuxda aan loo isticmaalin halkaas laftarkeeda caqabad kale ayaa ka haysta blockchain-ka labada qodob hadda kasoo gudubna waxaa u gudbaynaa qodob saddexaad oo ah noocyada ugu muhiimsan cryptocurrency-ga hadda waxaa soo fahantay cryptocurrency xitaa waxaa fahantay blockchain wuxuu yahay okay maxaa muhiim ah marka yaa ugu muhiimsan cryptada marka la joogo cryptocurrency ugu horeeyay sida aan sheegnay wuxuu ahaa bitcoin waxaa la sameeyay 2009 waxaan loogu talagalay inuu noqdo lacag digital ah oo lagu bedelo lacagaha caadiga ah ee fiat-ka ah wuxuu leeyahay marka sifooyin ama tilmaamo muhiim ah bitcoin-ta supply xadidan oo ah 20 milyan kaliya la heli karaa waxna laguma dari karo waxna lagama dhibi karo waxaa lagu isticmaali karaa sidoo kale ganacsiyada caalamiga ah iyo maalgashiga intaba bitcoin magacyo badan loo yaqaanaa gold of cryptocurrency digital asset magacyo badan oo looga naasaa jirto iyo inuu bedeli doono lacagahan maxaa la dhahaa fiat-ka intaba uu suuq saari doono isagana uu noqon doono midka la isticmaali doono mustaqbalka fog bitcoin marka laga soo tago waxaa jiro wax la yiraahdo altcoins oo dhagihiin in badan maqleen oo soo noqdeen oo aan hubo dadka qaarkood ama cusub ama hore joogay inay altcoins-ka si fiican u maqleen laakiin waa maxay altcoins-ka waxay ka kooban yihiin dhammaan cryptocurrency-ga oo dhan marka laga reebo bitcoin-ka kuwa ugu caansan ama ugu waaweyn waxaa kamid ah ethereum binance oo bnb solana cardano oo ada ah iyo kuwa kaloo tiro badan ethereum marka maxay tahay ethereum waxaa loo isticmaalaa barnaamijyada ku shaqeeya smart contracts-ka iyo codsiyada aan xarunta lahayn oo ah DApp sidoo kale waxaa jiro bnb saa taqaaniin waxaa iska leh maamusha Binance exchange-ga weyn suuqa cryptocurrency marka la joogo ayaa iska leh waana lacag loo adeegsado qarashaadka Binance exchange ku baxa sida coin-ka laftirkeeda ayada lagu kala iibsado sida in fee lagu bixiyo sida ayada lafteeda coin ahaan loo iibsado hawlo badan ay qabato ayaa jira
sidoo kale waxaa jirta Solana waxay soo bandhigtaa shabakad aad u degdeg badan oo taageerta NFT-da iyo barnaamijyo kale. taas markaa kasoo gudubno qayb kale waxaa jirta la dhaho stablecoin waa lacag digital ah oo qiimaheedu ku salaysan yahay lacagaha caadiga ah sida doolarka, taasoo micnaheedu ka dhigan tahay in halkii stable uu u dhigan yahay $1. waxaana loogu talagalay inay yareeyaan halisaha ku imaan kara isbedbedelka qiimaha. maanta haddii $100 oo 100 USDT ah ama 100 USDC ah aad gashato stablecoin, micnaheedu waxay ka dhigan tahay inaad $100 haysatid ayadoo waxba aan iska bedelin. USDT waa mid ugu weyn, waxaa la dhahaa waxa iskale shirkad la yiraahdo Tether. waxaa inta badan loo isticmaalaa lacag dhexdhexaad ah oo marka aad ka ganacsanayso cryptocurrency-ga, sababtoo ah ayadaa wax lagu kala iibsadaa. sidoo kale waxaa jirta lacagta labaad stablecoin-ka ugu weyn USDC, waxay bixisaa ayadan sidaas oo kale in la isku bedelo lacagta fiat-ka ah iyo lacagta cryptada. si aad wax ugu iibsatid waa inaad haysataa lacag stablecoin ah. labadaas ugu caansan, kuwa kale badanna waa jiraan. tusaalooyinka marka hadda halkaas uga soo tagno, intaas inta badan in la fahmaa rajeynaa, ama dadka inta badan ay ka dhacday hadda cryptada waxay tahay qaabka ay u shaqeyso. waxaa u baahan tahay marka inaad isweydiiso markaa suuqan joogtid su'aalahaas. markaa su'aal walba markaa iskaga jawaabtid waa inaad isweydiisaa su-aashii ugu horeysa ee kugu soo dhacayso ah maxaad u danaynaysaa cryptocurrency. waa timid suuqan, waa soo maqashay, meeshaad doonta kasoo maqal, qaabkood doonta kuusoo gaarta, laakiin maxaad u danaynaysaa? si loo fahmo marka sababta uu qofku u danaynayo inuu ku biiro suuqan ama cryptocurrency. tusaale ahaan, ma ganacsi ayuu ka raadinayaa, ma maalgashi ayuu ka rabaa, mise tiknoolajiyadda cusub ayuu xiiseynayaa inuu barto, sida blockchain-ka, sida web3-ga, sida iyo wixii kasoo haro dhan AI-ga. waxyaabo badan oo waxaa jiro suuqan uu ka shaqeeyo aana ahayn trade ama investor ahayn, oo ah tiknoolajiyadda cusub si aad uga qayb qaadato. marka saddexdaas qofkee tahay adiga? ma waxaad qof ganacsi raadinaya tahay, ma qof maalgashi inuu wax maalgashato u yimidaa tahay, mase waxaad tahay qof tiknoolajiyadda cusub xiiseynaya? saddexdaas qofkaad tahay marka adiga inaad iskaga soo jawaabtid waaye. kadib midda kuu fudud ama midda aad danaynaysid inaad xoogga saarto barashadeeda. su-aasha labaad oo rabo inaad isweydiiso waxay tahay, miyaad leedahay aqoon aasaasi ah oo ku saabsan blockchain-ka iyo cryptocurrency-ga? aqoon waa leedahay, sababtoo ah hadda lagaaga soo jawaabay su-aalaha inteeda badnaay. tusaale ahaan, ma og tahay sida bitcoin, ethereum ama blockchain-ka u shaqeeyaan? haddii jawaabtaada maya tahay, waa muhiim in lagaa bilaabo inaad bilaawdid ama aad barato waxa ay yihiin bitcoin, waxa uu yahay blockchain, waxa ay yihiin altcoins, waxa uu yahay ethereum. waxaasoo dhan waa in aad barato. waa maxay marka waxaa tiri marka hadda waxaa ahay qof maalgashada ah, qaybta labaad aad dooratay maalgashada ahaa tiri. su-aasha marka isweydiinta mudan waxay noqon doontaa, waa maxay hadafkaaga maalgashiga? ma rabtaa inaad si degdeg ah uga faa'iidid ama faa'iido uga hesho short term trading, mise waxaad u socotaa maalgashi muddo dheer ah, long term holding, inaad lacag holding gareyso oo waqti dheer ah hayso? ma og tahay ama miyaad og tahay khatarta la xiriirta cryptocurrency-ga ama wax khatarta ay leedahay? because faa'iidada wax dhan waa soo ogaatay, mid walba wuxuu yahay kala fahantay. ma og tahay marka khasaaraha ama khatarta ay leedahay? waa muhiim in la fahmo in suuqa cryptocurrency-ga uu yahay mid aad u kacsan oo halis badan, lagana yaabo in qofku uu ku waayo lacagtiisa. waa sababta mar walba loo dhaho suuqan ha ku maalgashanin ama hala imaanin lacag aadan awoodin in ka badan inaad lumiso. su-aasha shanaad, hadda su-aalay wada noqonaysaa wixii oo dhan. ma leedahay miisaaniyad ama maalgashi miisaaniyadeed oo gaar ah? waa in qofka uu ogaadaa in lacagta uu gelinayo aysan ahayn lacag
uu ku tiirsan yahay nolol maalmeedkiisa sida lacag ay jaar ku bixinaysid lacag aad waxbarasho ku bixinaysid lacag aad caafimaad ku bixinaysid lacag aad si kale ama howl kale aad rabtay inaad ku qabato ma ahan in suuqan aad ku maalgeliso ama aad la soo gasho iyo sidoo kale lacag aad deen ku soo qaadatay deen aad ku soo bixisay marka ma leedahay miisaaniyad maalgashi oo gaar ah tusaale haddii aad qof shaqaynaya tahay oo aad ku shaqayso $200 $300 miisaaniyadaada maxay tahay maalgashiga markii laga reebo nolol maalmeedkaaga sida inaad kira iskaga bixisay sida inaad waxbarasho ku bixisay sida inaad caafimaad ku bixisay sida inaad cuntadaada iyo nolol maalmeedkaaga ku bixisay maxay tahay miisaaniyadaada adiga is xisaabi ma $10 bishii ma 20 ama 30 ama 50 marka ogaatid lacagta miisaaniyada kuwa billaha oo maalgashiga ugu tala gashay markaas waad maalgashi kartaa ma isticmaashaa qalabyo casri ah sida exchange iyo wallet waa muhiim inuu qofka barto sida loo isticmaalo crypto wallet sida Trust wallet ama MetaMask ama Phantom ama kuwa kale tiro badan sidoo kale waa inaad leedahay platforms ama exchange ku sahlaya inaad ganacsatid ama maalgashatid suuqa cryptocurrency sida Binance, KuCoin, Coinbase, Bybit iyo kuwa kale tiro badan midkii markaas wadankaaga laga aqbalayo ama ka shaqeynayo waa in asagana aad furataan sida ugu dhaqsaha badan si ay kugu fududaato hadhowti su'aasha toddobaad miyaad xiisaynaysaa inaad wax barato marka hore mise si toos ah ayaad u bilaabi lahayd adigoo qofka tahay isweydii miyaad xiisaynaysaa inaad wax barato marka hore mise si toos ah ayaad u bilaabi lahayd tan waxay kaa caawinaysaa inaad fahanto haddii qofka diyaar u yahay inuu waqti ku bixiyo barashada ka hor inta uusan gelin lacag marka dadka isku fikrad ma dadka qaar waxa laga yaabaa maanta haddii suuqa soo ogaadaan cryptocurrency jiro exchange noocaas ah waddanka ka shaqeynaya deposit saana loo dhigtaa intana baya laga dhahaa ayagoo waxba fikir aan ka haysan in iska iibsadaan taasina halisteeda leedahay okay miyaad leedahay marka caqabad luqadda farsamada tusaale suuqa marka joogno waxa la isticmaalaa terminology ama luqado English oo la soo gaagaabi mararka qaar dadka intooda badan ay fahmeen taasna ay ku noqon karto caqabad marka caqabad hadaa leedahay ama ay ku adagtaa qofka in uu fahmo luqadda cryptada ama teknolojiyada loo isticmaalo waxa muhiim ah in la siiyo ama uu barto taageero luqadeed asagoo baranayo ereyada gaagaaban waxyaabaha laga soo gaabiyay oo uu xoog saaro si uu u fahmo fahankiisa dhan uu soo laabto 9 ma leedahay lacag kugu filan oo aad ku kaydiso si amaan ah waxay noqon kartaa emergency fund lacag maalgelinta cryptocurrency-ga looguma talagelin lacagta ugu dambeysay qofka waana in qofka uu leeyahay keed lacag ah oo aan la taaban tusaale maxaa ka mid ah maanta waxa qof dhalinyaro tahay ama qof weyn tahay lacag waxa haysataa ka soo qaad $10,000 ah 10kaaga waxba kama dambeeyaan shilin kale gadaashaada ma jiro 10kaas haduuna shilin ka dambeeynin sax miya in aad suuqa la imaato ma sax maahan qofka mar walba waa inuu leeyahay keedka wuxuu kale oo doono oo maalgelin ama uu noqon kara cash lacag uu noqon kara ama wax kale uu noqon kara ama dahab uu noqon kara ama dhul uu noqon kara waa in wax ka baxsan waxa maalgelinayna leedahay mar walba mid ugu dambayso oo su'aasha ugu dambaysa waa maxay waxyaabaha aad ka filanayso cryptada maxaad ka filanaysaa su'aashaas waa su'aasha ugu dambayso isweydii waa maxay waxyaabaha aad ka filanayso cryptocurrency ama inaad lacag ka hesho ayaa muhiim ku ah mise inaad fahanto teknolojiyada cusub ee mustaqbalka labadaas adiga kee muhiim ku ah oo muhiimada aad siinaysaa doorashada asaga iskala qofka asagana kala saari karo midda uu xiiseynayo midda uu rabo
waxaan rajeynaa intaasna in la fahmay oo meel aas la wada dhignay qof walbana waxaa waaye usoo baxday jawaabta saxda ah inta kale dhiman waxaan siin doonaa